sibad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal maamulka iyo macallimiinta dugsiyada Waaberi ayaa maanta lagu qabtay barxadda dugsiga Waaberi ee magaalada Boorama. munaasabadaas ayaa waxa ujeedkeedu daarnaa soo xidhitaanka tartan aqooneed iyo kuwa isboorti ee sanad dugsiyeedka 2018 iyo 2019. ugu horeyn madashaas ayaa waxaa ka hadlay maamulka iyo macallimiinta dugsiyada Waaberi oo faahfaahin ka bixiyay tartanadaasi waxaan hadaladoodii kamid ahaa isboortiga, quraanka, waxbarashada intiiba saaka halkan lagu soo gabagabeynaya. hawsha hufanna waxaan uga mahadnaqaynaa galaaska form 3ga iyo macallimiintii kala soo shaqeeyay. kullay xafladeennani sidaan ognahay waxay daaran tahay inaan ku soo afmeero sanad dugsiyeedkii 2018 barnaamijyadii taxanaha ahaa ee inoo soo socday ayaa saaka lagu soo afmeeraya. barnaamijyadaasoo ahaa quraanka, waxbarashada iyo isboortiga oo maanta halkan galaasyadii iyo fasalladii ku guulaystay aynu ku abaalmarin doono. xafladeennu intaabay daaran tahay. fasalladii ku guulaystay ayaannu la qaybsan doonaa. waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa fasalladii sida gaarkaa ugu guulaystay ee ahaa 4A oo isboortigiiya iyo waxbarashadiiba qaatay. waana galaaskii sii socday ee ay naga sii qalin jabinayay. marka inaan ku sii aan ku sii sabootino oo ay guulaha sii qaataan wadhan bay ka fiican tahay. dhanna way naga qalin jabinayaan oo ardayda noo hadhaysiin ay ku guulaystaan baanu jeclayn. laakiin waxa weeye si qurux badan bay u shaqaysteen ay ugu guulaysteen. fasallada iyaguna ku guulaystay quraankii waa fasalka form 3 ee xafladda aan u fadhino. iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa. way shaqaysteen. ardaygii kaalinta koobaad galay dugsiga sare heleen. ardaygaana sidii aanu ballan qaadnay waxbarashadiisu waa u firi inta ka hadhay sanad dugsiyeedka. taana aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxa kaloo iyaguna meeshaan ka maqnayn fasalkii laga qaaday educationka dugsiga sare ee form 1 iyaguna way dadaaleen. waa galaaskii waxa weeyaan saddexaadka iyo fasalka shanaadka. iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. tartankii aqoontay ku guulaysteen. waana guul. sanadka dambana insha Allah ama way haysan doonaan ama waa lagala wareegi doonaa insha Allah. waa tartan noo soconaya. socday xafladan oo sanadkiiba hal mar ka qabsantay dugsiyada Waaberi ahna xaflad sanadla ah ayaa waxaynu inta badan ku sharafnaa kuna maamusnaa ardayda ku guulaysata waxbarashada iyo isboortiga iyo quraankaba. uguna hambaliyeen waxay hayeen macallin Jaamac Faysal iyo macallin Mustafa. labada macallin iyagna si gaar ah oo hambaliyeenaya waxay hayeen labadii macallin ay noo fududeeyay qabsamida tartanka quraanka kariimka. tartanka isboortiga saddexda barnaamij ayaan xafladooda u joognaa. kollay waxaan rajaynaynaa maxaa dhacday xaflad qurux badan inay halkan inoogu dhacdo maadaama inoo soo diyaariyeen ardayda form 3 sida qurux badan ugu soo diyaariyeen. waxa weeyaan waxa tartanka sharafta leh sida u dhamaaday. tartankuna markaasuu qiimo leeyahay. haddii maanta lagaa badiyay berri baad badinaysaa, saan dambana waad badinaysaa. aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa. adduunyaduna waxay ku dhisan tahay in waxa wanaagsan nuucyadiisa kala duwan lagu tartamo. sidoo kale madashaas ayaa waxaa hadallo kala duwan ka soo jeediyay ardayda wax ka barata dugsiyada Waaberi. waxaan hadaladoodii ka we are healthy and also I thank my parents who made me whatever I need and encourage me to learn something. those who were inside me. Secondly, I am greeting my dear honorable teachers, beautiful student audiences, spectators, honorable. غفار مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، تذكرة لذا الألباب. أما بعد أنا أحييكم بتحية يا سعادة مدير المدرسة، يا آباء المعلمين، يا ضيوف الأفضل، يا إخواني الطلاب. أنا أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله، تحية من أهل الجنة، تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء. kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha arrimaha ardayda ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal Fuaad Cabdisamad Seed. waxaana uu yidhi oo ah muhiimad maadaama aynu nahay dad islaama 100% waan hambaliyanayaa. waxaan kaloon hambaliyanayaa fasalka form 4A oo iyaguna ku guulaystay physical education ama tartanka kubadda cagta. waxaan kaloo hambaliyanayaa fasalka 8A oo iyaguna guulaystay oo ku guulaystay tartankii kubadda cagta. iyo fasalka 4
oo mar labaad ku guulaystay tartankii debateka ama la odhan jiray aqoon isweydaarsiga dugsiga iyo soomaalidu waxay tidhi goor gaaban hadalkeed gaaban waxaan halkan fariin uga dirayaa ardayda iyo maamulka dugsiga Waaberi sida wanaagsan ee ay u ixtiraamaan annaga oo mas'uulka xafiiskan aan mas'uulka ay student affairska anigoo soo dhaweyn doono fikir walba oo ardaydu ay la yimaadaan oo wanaagsan annaguna waxaanu sanadkii dhaweeyta qabanay oo aanu degmada Qulsheed ku qabanay tartankii isboortiga ee dugsiyada sare walow ay igu jirtay caloosheeda ku jirtay Waaberi haddana waxa iga asbaxay oo hilmaam hadal kuma jirto waxaan kaloo nimka aan wadnaa oon xafiis ahaan wadaa wasaaradda waxbarashada gudaheega waxa ka socdo tartanka debateka aqoon isweydaarsiga dugsiyada dhexe ee dawliga ah oo 8 iskuula oo ay final isku soo hareen khamiista soo socoto dugsiga Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdisalaan iyo dugsiga good anigoo sanadkana xoog saari doono sanadka dambe sidii aan iskuulada hoose dhexe ama secondaryada aan uga qaban lahaa dugsiyada sare iyo kuwa hoose ee privateka iyaguna ay nagula jiraan ugu dambeyntii munaasabadaasi ayaa waxa abaalmarino kala ahaa quraanka waxbarashada iyo isboortiga lagu gudoonsiiyay ardaydii ku guuleysatay tartanadaasi Sakariya Saxane Raya TV Boorama